سمارة وين كوحيين نقولينا إذا كدارون وزير قاطع حفيزك هذا اللي ولا بابي صورة قل ماها إذا عندك هذا هاي ورنمايو نكان أيوب وابد تقانا لكن سياسة الصومالية وحا كسو كورني كابتن أيوب كالي سعيد دني نليرا أو أيوب كو عقلية أو كو هذلا أو كو قيلة أو تاق دارو كرسي وانا لغا بوبي هوي ساقا نوهيشي أو عدوايا حمس مرحوم بس إنو دو وأيوب جرا هورتو قدبدي سعيد دني ما انت أينو انت مهم سان كسو قادة دونا سؤال لو ويدين دونا qaybta koowaad isma dhaanta dhasheeda la yiraahdo cidii waa kuwaasa qaybta labaad masagawa saakay nimankii shabaab ahaa masagawa waa dhulkii aniga aan ka soo jeedo waay abgaal marka la soo tago waa isle waa nagu soo jarmaadeen ciidan militariya oo masagawa degan waa galeen xeradii dagaal dheer kadib laba tignika ah waa dafeen laakiin kadib maxaa dhacay marka taariikh dhacday ويا وشرحي دوناي إسلا شباب كي أنكو قد جرناي ويركي بولا مرير أمسوم كارهان عيدن كي يوغاندا سيدا كوا سومالي دا مهلا ساقا مهرين مدحويني يوغاندا وريسي إنجليش أو ديبايي وادي مقاشين دوناي وحو تاقين يهي عيدن كينا هورتو والغسو جرماد على سي مقدي على هلاي مديار سنين مقدي هدي لو وهلوري مدى قالا مكرتين بل إلا دقيس أساقو كقين لي مقدي. The attack started at 5:10 when it was still dark. Now, if people are not well prepared, fighting in the dark can also be another problem. Waxa ugu muhiimsan markiina la soo weerarayo dhahay Turki iyo Mareykan oo haysta agab casri ah oo ka taya badan kuwa ciidamadan ay isticmaalaan dusheena naga daaweynaya meeshan ciyaara ka socoto ciyaar laakiin jawaabta anaga bixin doona hadda kadibna anaga isdifaacin u dhahay waayahay wareysiga dheer qaybaha Soomaaliya quseeya ayanu ka qaadan doonaa intiisa nuxur kale aan u soo laabto qodbadii Saciid Dani maanta oo aan wada sugeynay horta Saciid Dani qodbadiisa qodbad academic ah oo heerkeedu sareeyo oo nin siyaasi sida Puntland deegaan leeyahay matala ma ahayn qodbada dee ahaan leed walba karbaash siyaasadeedsan oo madaxda Soomaaliya ku karbaashayo waa wada fahmi leen caalamka xataa waa fahmi laa ee wuxuu ku hadlay horta qodbad wuxuu jeediyay caamada ay ku hadasho sida Captain Ayuub oo kale oo meeg qaat horto war caam ku hadlay sida qabiil kicin oo kacsi qabiil wax yaraan ka dhihi doonaa laakiin Dani waxa looga fadhiyay inuu ka hadlo wixii ka dhacay Nugaal caasimadii Garowe madaxtooyadiisii inuusan tagi karin kama hadlin waaya kama hadlin isqabqabsiga ugu ballaaran waxa madax u ah 8 January doorashada Puntland madhaceysa marna soo ma hadal qaadin weligiina soo ma hadal qaadi doono intaas meel iga qorta waayaan u soo laabto wuxuu ku nuuxnuuxsaday daarood siyaasadda waa ku agoontoobay daarood saami qaybsiga waa lagu qadiyay ninkale horta daarood baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose iyo maamul goboleedyada ra'iisul wasaare leeyihiin ee shakhsi maqan daarood kuma agoontoobaan cid in la agoonteeyo la rabana siyaasadda dawladda maba ku jirtaba ama daarood ha noqdaan ama digri marfal ha noqdaan laakiin waxaan rabaa haddii Dani daarood uu har u jiidayo warkaan qortaya bandit asoo farmaajo haysto iyo asoon haysan buu maal iyo waqti wuxuu geliyay sida farmaajo looga soo tuuri lahaa daaqada ilaa meeg qulunta qabsado hawiyo ma soo telefoon wuxuu telefoon ku wada leextaa waa sheegay inkastoo been iskeed anaga afahamsaneen barigaas lak waa loo baahnaa kow haddii daarood uu qiimo la leeyahay farmaajo horta garab siilaa asoo la jiida hormuud kama noqdeen dadka in la sira maaha mise barigaas waxay ahayd mareexaan ma jeerteen uma dawladeen karo maanta marka caamadii ka faa'iideysana hartiga ileen daarood kala ma qaldi karee maanta waxa weeye hawiye daarood uma dawladeen karo haddana laakiin daaroodka kale waa fahamsan yihiinoo caamadii hartiga buu rabaa maadaama dadku qabiil ay aad ugu bisil yihiin inuu kaga faa'iideysto shucuurtoodu rabaa horta ninkii dhamaaya madaxweynaha Puntland ahaa ee sumcadda lahaa oo kacsi meeg kulul iyo qabiil kacsi buu ku soo aruur horta waana uga tacsiinayaa Puntland in nin meeg kulul iska wato qabiil sida Captain Ayuub u hadlaya inuu madaxweyne u yahay caafi waa dhacdaa waa qadar ilaahi caafi ku sabra waaya halkaasan kaga gudbayaa qaybta labaad ku dheeraan maayo masagawaa saakay nimankii shabaab ahaa xer ciidan
oo ciidanka dowladda military degan yihiin kusoo jarmaaday dagaal leysku riiqmay oo saacada socday oo waxba leysku reeban baa halkaa ka dhacay maleeshiyada qawaariijta ah waxaa u suurto gashay in xerada ay qabtaan oo ay galaan oo laba cabdi bile ay qaataan waxay dili karaana dilaan iyagoo markaa wax iska duuduubaya yaa oo dabaaldeg iyo idaacadihii alfurqaan iyo baktigoodii ay rabaan inay wax u duuduubaan baa ciidan macwiisley waceysla ah oo ay hogaaminayaan niman la yidhaha qayla weyne iyo ina macalin nuur nimankaas qiimo i karaamay leeyihiin yaa oo 2,000 aan ka yareen shabaabka laftirkooda 400-500 kama yareen soo weerar meesha walow nasiib darata in ciidan dhan oo military la iska dardaro baa horta 10 lama iloobaan u dhigay qasam billah aan hadii meel la galana waa sheegaa hadii la baabi'ina waa sheegaya taariikh meedadkoodii banaanka masagawaa ilaa duurka wallahi waa balqayin umaleyn ma shabaab dambe inay ku soo sirmi doonaan waxa sacajiib ah horta ina macalin nuur iyo qayla weyne qeer Allah siiyo iyo wiilasha abgaalo dhammaantoodba ee halkaas ka dagaalamay taariikh aysan weligood masagawaa iyo dhul abgaal aysan ka imaandu kusoo gardaroonin horta waa loo sameeyey saasaa loogu digris meedadkoodana bahalada iska ruugaya wallahi lama duugi karo hataa qasama bilaa lama duugi karo eba ugu mardama soo qaldamay ma doonaan kuwaas anaa ku haay beriga wixii ku dhacay yaa galcadna hore ugama dhicin tan maanta taariikh cusub oo la qorayo waaye ciidanka gorgor iyo wiilasha macwiisleyda abga ee wacaysle taariikh waa dhigeen waayahay hormuud saakay ciidamadii militariga ee halkaasi ku jiray mar kale taleefankii ka dansadeen warnimayo run ma isku sheegtaan warnimayo Soomaaliya hawiyow ma run isku sheegtaan nimankan hormuuda aniga si kale ulama dagaalsanin saaka wiilashi masagawaal lagu galo lagu dhameeyay anteenada waa ka dansanid horto anteenada wiilal yar oo taleefan caadi iyo toornay ciidamada isticmaalaan baa lagu badbaado gurmad ceel dheer kaga mid maane hal ma noolaadeen war kuwii duurka galayna anteenada waa ka dansatay kuwii ayagoo dhaawac la qaadi lahaana anteenada waa ka dansantaa meel ku jiro ku sheegi ma cadow kale waa hormuud cadow kale oo aan leenahay waa laakiin idinku ma fahamsanidin mana fahmi doontaano beesa halkaas ku jirto beesa waxa ka qiimo badan wiilasha naga dhimanay ama xawaad la noqdaan ama habar gidir ha noqdaan ama abgaal ha noqdaan kuwa dagaalamaya dhimanaya kuwa lacag tale caloosha burna hormuud leh kuwa qaranka u dhimaya kama qiimo badan laakiin waa iloosha dhowdihiin intaas waay ninkii Musafani ahaa ayaan ku soo gabagabeynayaa horto waa calool hadla odagii meegna waa qaatay American iyo Turki aan soo koobo wareysigiisa inta nuxurka ah ee Soomaaliya qusaysa horta odagu wuxuu yiri ciidamada Soomaaliya aaday ee la weeraro yiri iyo kuwa hadda aan la weerarin joogo horta waa calooshoodu shaqaystayaal u dhahay corruption halkaas ka jiro u dhahay wuxuu dhahay sanadkii waxa soo galuu dhahay lacag $12,000 bishii muu yiri ma aqaan adiga $12,000 bishii soo xaruntu dhahay usoo xaruntu waa bishii sanadkii ma bishii sanadkii 800 noqonay ma aha 800 maya ma aha bishii ayuu tay Uganda ugu jiraan u dhaharto corruption a jiro u dhahay nin kasta Soomaaliya loo ordaayo dagaalkeeda waxa loo soo lacag waa taas waa u dhahay tan labaad nimankan waxay nagu heloon u dhahay early and soo weerareen mugdiina heleen haddaadan dagaalka mugdi u diyaar garoobin waa adagtuu dhahay in la iska difaaco wuxuu hadalkiisa ku soo koobay Turkiga iyo Mareykanka waxay haystaan u dhahay drones haystaan u dhahay ciidamada Uganda waxay ku dagaalamaan u dhahay aakayaal iyo qoryo hore old ah oo ku dagaalamaan u dhahay duqo ah oo xataa casri ahayn nimanka marka Turkiga iyo Mareykan waxay haystaan u dhahay drones casriya wayno imaan kareen wayna difaaci kareen erkay ka weerar kareen laakiin waana ayagoo calool waaweyn inta soo booqdeen na fiiriyeen kula way naga tageen taasna mid ay ilaabi doona ma ahan u dhahay waxaan hadda kadib sameyn doonaa u dhahay annaga isku tashanayno xiriirka ma dhaxeeyo u dhahay admiska xam ee joogta ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo Mareykan xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo u dhahay taasina loogama guuleysan karo u dhahay halganka shabaab lagu jiro ma loo nin walba waxba u duugan u dhahay marka qish weyn oo nasiyo umada Soomaaliyeed ayaa ogaadaya meesha ma ka faanteen hadalka iskama soo jeedinayay wax ma ka faanteen meesha idinka hadda kadib Uganda ila isdifaaci soo dhahay marka wuxuu kale ku kaftamay ciidamada caloosha u shaqaystayaasha ah ee asaga ciidankiisa ula jeedo malaha spiritiga ruuxiga ah ee NRA jabhadii isaga uu hogaaminaya afgambi ku qabsatay Uganda
ruuxiyadda geesinimada ma lahu dhahay ee calooshooda u shaqaystayaal waayahay barnaamijkayga habeennimo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan inta barnaamijka noocan ku kulmi doonno waa saaxiibkiin boosko idin leh beejkana follow dheh youtube kana follow dheh mahan cibaada ka socota abdheeda bye bye